maanta waa maalinteeni labaad ee shaqadii aan ka wadnay degmada Baardheere aan ugu macdarnay ololaha caafimaadka degmada Baardheere ee ay naga caawinaysay Fadhi Gargaar Foundation ay naga caawinaysay waxaan rabaa maanta shaqooyinka aan qabanay maalintii labaad anoo soo koobahay wax yar inaan la wadaago dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba maanta maalinteeni labaad bahayd waxaan la kulannay dad ka badan 200 oo qof shalay waxaan la kulannay 185 qof maanta waxaan la kulannay 200 qof dad ka badan waa dareemi kartaan maanta way korortay imaatinkii iyo bukaanka meesha soo buuxinayo imaanayo baahida caafimaad qabay taasna waxay cadeynaysaa in baahida caafimaad ee degmada Baardheere aad iyo aad ay u tiro badan tahay maalinba maalinta ka sii dambayso dadku waxay isu sheegayaan adeegga lacag la'aanta ah qalabka la hayo dhaqaatiirta iyo daawooyinka meesha yaallo qof walba wuxuu isleeyahay fursaddaas yar ee maanta jirta ka faa'iideyso dadku waxay ka imaanayaan miyiga fog waxay ka imaanayaan miyiga dhow waxay ka imaanayaan magaalada gudaheeda waxay ka imaanayaan degmooyinka kale oo degmada Baardheere ku xeeran maanta 200 iyo ka badan qof baa lala kulmay dadka ayaga ah dad ka mid ah waa la jiifiyay dad ka mid ah waa la daaweeyay dad ka mid ah waxay heleen adeegii caafimaad oo dhameystiran oo u baahnayeen oo dhaqaatiirtii timid degmada Baardheere ay wadeen sidoo kale waxaa sid mudan galabta waxaan bilownay kiiska ugu horeeyay oo qalliinka ah waxaa jirtay maamo ay ku taalay buro insha Allah ta'ala dib baan in la wadaagi doonaa hadii alla idmo hadda waxaa socda qalliinka oo lagu jira galabta waxaa bilowda qalliinkii maanta waxaan aragnay dad ilaa 15 qof oo u baahan qalliino shalay waxaa la arkay 10 qof marka maanta galabta qalliinka waa bilowday shalay iyo daraad iyo maanta gelinka hore waxaa lagu mashquulsanaa hagaajintii saalada dadka loogu shaqeyn lahaa gelinka hore maanta aan soo dhameystirnay hagaajintii saalada galabta qalliinka ugu horeeya ay ku jiraan dhaqaatiirta waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysto qalliinkaas ugu horeeya kuwa dambana insha Allah ta'ala caawa subaxii mar walba suurtagalshaba qalliinka waan sii wada doonaa runtii mar labaad iyo mar saddexaadba way korortay baahida degmada Baardheere sidoo hore aan u ballan qaadanay maalin walba hadaha oo kale waxaan la wadaagi doonaa maalin walba shaqada aan qabanay baan la wadaagi doonaa insha Allah ta'ala ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaba runtii degmada Baardheere baahida caafimaad aad iyo aad bay u tiro badan tahay dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba iyo Fadhi Gargaarba waxaan ka codsanaynaa in indhaha lagu hayo cid kastoo dadkaas masaakiinta dhibaataysanaya abaaraha iyo amni darrada iyo colaadda iyo dhibka iyo mushkilooyinka iska haystaan caafimaad darrada cid kastoo caawin kartaba inay caawiso insha Allah ta'ala